habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin waa go'aan kale iyo codeyn baarlamaan oo muhiim ah laakiin xildhibaanada Britain markan ma taageeri doonaan heshiiska ra'iisul wasaarahooda ee Brexit ee looga baxayo midowga Yurub wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa Westminster qodobada kale caawana waxa kamid ah madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya Djibouti ayaa ku amaanay doorka dawladda Djibouti ee nabadeynta Soomaaliya diyaarado badan oo Boeing 737 ayaa dhulka la dhigay oo la joojiyay Singapore iyadoo uu socdo baaritaanka burburkii diyaaradii Ethiopia Airlines oo ay ku dhinteen 157 qof caawana waxaanu idiin haynaa talooyinka mid kamid ah weeraryahanada kubadda cagta adduunka aadka looga qiimeeyo waa Robert Lewandowski kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa iminka waxaa fadhiya baarlamaanka UK oo ka doodaya heshiiska ra'iisul wasaaruhu la soo galay midowga Yurub iyadoo hadhowna la filayo codeyn adag oo ay wajihi doonto ra'iisul wasaaraha Gordon waxay kadib markii wada hadallo saacado qaatay la soo gashay madaxda midowga Yurub Theresa May waxay ku dhawaaqday isbeddello ay isleedahay waxay u horseedi karaan inay ku guuleysato codeynta baarlamaanka oo hore si xoogan uu u diiday baarlamaanku bishii January ee sanadkan ra'iisul wasaaraha ayay tahay in ay qancin badan ay u samayso si aanay ugu dhicin in mar kale laga helo codeynta waxaanay jeedisay hadalkan markii baarlamaanka doodu ay ka bilaabatay xubnaha halkan fadhiya waxaa la gudboon inay taageeraan heshiiskan oo ah inaynu ka baxno midowga Yurub iyadoo heshiis jiro taas oo ila fiican ama in aan heshiis la gaadhin ama aanan Brexit ka dhicin risk no deal or no Brexit haddaba halka ugu weyn ee ay dhibtu ka taagan tahay waxa weeye xadka u dhaxeeya waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Ireland oo ah iyadu wadan ka tirsan qaaradda Yurub dad badan ayaan doonayn in dib loogu soo noqdo kontroolkii xadka ee heshiiska Miss May waxaana uu ka fogeynaya arrintaasi si ku meel gaar ah iyadoo la hirgelinayo nidaam kastamada oo ka dhaxeeya midowga Yurub laakiin taageerayaal badan oo Brexit ka tirsan ayaa ka soo horjeeda arrintaasi waxaana dawladdu ay sheegaysaa inay isbeddel ay u samaysay si UK heshiiskaasi waligeed aanay ugu jirin madaxa guddiga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada baarlamaanka ee Britain in aan wax dambe la bedeli doonin siyaasaddu marmar ayay ku siisaa fursad labaad fursadda labaad waxaad ku samaysaa ayaa macna samaynaysa sababta oo ah fursad saddexaad ma jirayso dib looga turjubaani maayo arrin hore looga tarjumay damaanad kale ma jirayso oo ka duwan damaanadihii hore codka berri haddii lagu guulaysan waayo si qayaxan waa inaan u caddaynaa in laga yaabo ka bixitaanka Britain ee Brexit inaanu dhicinba bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu kala baxayo shaqaalihiisii diblomaasiyadda ee kaga harsanaa Venezuela go'aankan ayaa soo baxay kadib markii dawladda Venezuela ay weydiisatay iskuulada iyo ganacsigu inay xirnaadaan maalintii labaad tan iyo markii ay bilaabatay koronto la'aanta maalintii Khamiista Mareykanka ayaa u sheegay dalka Jarmalka in ay xadidi doonaan in ay sirta la wadaagaan Berlin haddii ay u ogolaato shirkadda Huawei in ay ka qayb qaadato internetkada mobilada ee G5 Mareykanku waxa uu ololeynaya xulafadiisa inay qaadacaan shirkadaasi Shiinaha laga leeyahay arrimo la xiriira dhinaca amniga jawaabteeda shirkaduna waxa ay ka dhigtay dacwad ay ka gudbisay Washington soddon sano ayaa maanta laga joogaa markii la aasaasay shabakadda caalamiga ah ee WW oo bedeshay qaabka aynu u noolnahay hadda waxaa jira in ku dhow 2 bilyan oo website laakiin ninkii soo saaray Sir Tim Berners-Lee ayaa waxa uu ku baaqay in tallaabo caalami ah la qaado isagoo yiri waxa hadda website-yada loo isticmaalaa faafinta warar aan jirin iyo nacayb markana Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa boqosho rasmi ah ku tagay dalka Djibouti boqoshadan waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee uu muddo 20 sano ka badan madaxweynaha Faransiiska uu ku tago wadanka Djibouti
madaxweyne Macron ayaa markii ugu horeysay si kafool ula kulmay dhigiisa wadanka Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waxaana labada hogaamiye ay ka wada hadleen xiriirka ka dhaxeeya labada wadan sidii loo xoojin lahaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu ku yiri sida tan mudane madaxweyne wadankaagu waxa uu ku talagali karaa Djibouti oo saaxiibtinimo taariikhi ah ay kala dhaxayso Faransiiska inaan ka wada shaqeyno horumarinta danaha labada dal arrimaha caalamka wada tashigeena waxa uu suurtageliyay in aragti mid ah aan ka yeelano arrimo fara badan sida difaacidda aragti wadaaga wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo horumarinta tamarta waxaan jecelahay inaan idinkaga mahadceliyo mudane madaxweyne go'aankii uu Faransiisku ka qaatay qaraarkii golaha qaramada midoobay ee 2444 ee ku aadan muranka sohdinta u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea madaxweyne Macron oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yiri jamhuuriyadda Djibouti waxaa ku yaala saldhigga ugu horeeyay ee Faransiisku ka dhisto meel ka baxsan wadankiisa oo ay ciidan badanna joogaan waxa uu saldhiggani ka shaqeeyaa ilaalinta ammaanka Faransiiska ee dibadda Djibouti waa goob muhiim ah wax badan ayaanan wadaagnaa iskaashiga ayaa waxa kale uu yahay dhanka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada Djibouti waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa ammaanka Soomaaliya oo ay ciidanka Djibouti qayb ka yihiin howlgalka AMISOM ee Soomaaliya madaxweyne Macron waxa sidoo kale uu booqday saldhigga ciidamada Faransiiska ee Djibouti kaasi oo ah kan ugu weyn ee Faransiisku uu ku leeyahay meel ka baxsan wadankiisa saldhigga waxa jooga ilaa iyo 1450 askari wariyaha BBC-da Maxamuud Ismaan Bulxan ayaa warkan nooga soo diray Djibouti Djibouti oo hore ugu guumeystay Faransiisku ayaa waxa ay tahay meesha kaliya uu ka soo galay gobolka Geeska Afrika waana halka kaliya Faransiis looga hadlo booqashada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli muddo dheer ay ugu dambeysay madaxweynaha Faransiiska inuu Djibouti soo booqdo iyadoo ay jiraan isbeddello xooggan oo ka socda gobolka Geeska Afrika ayaa Djibouti waxa saldhig ku leh dalalka Shiinaha iyo Mareykanka muddooyinka ugu dambeeyay waxa xumaa xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo Faransiiska kulankan waxa uu yahay dhexmaray labada madaxweyne mid lagu xoojinayo iskaashiga dhanka ammaanka dhaqaalaha shirkad abuurka oo Faransiisku door muhiim ah u sheegay inuu ka qaadan doono safarka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay tahay mid uu ku maray dalalka gobolka Geeska Afrika hadaba waxa magaalada Bristol ee wadankan UK qadka si toos ah ugu jira Caarif Cabdi Khayre oo ka faalooda arrimaha wadanka Djibouti waad mahadsan tahay inaad nagu soo biirto Caarif boqoshada madaxweynaha wadanka Faransiiska maxaa laga akhrisan karaa muddo dheer kadib markii ugu horeysay madaxweynaha Faransiiska Djibouti uu tago ta ugu horeysay laga akhrisan karo waxay tahay muhiimadda uu Faransiisku siinayo dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo geeska Afrika ka socoto isbedelo weyn oo saameyn ku leh bulshadii iyo siyaasadda iyo military iyo dhinac walba xilliga Faransiisku inuu dib u xaqiijiyo xiriirkii taariikhiga ahaa ee ka dhaxeeyay labada dal inuuna isbeddelkaasi wax saameyn ku yeelaneen taas waa kow wata horeysa laakiin xiriirkooda labada dhinac muddaba ma wanaagsanayn marka ma la oran karaa marka boqoshadan wax weyn bay ka bedeli doontaa warun oo xiriirkaasi kullay madmadow laa iyo muddada badan uu soo dhaxgalay waxaan oran karnaa laa iyo markii nin xaakin ahaa oo Djibouti waa lagu dilay la yidhi oo juge Borrell la oran jiray ay cadaaladda Faransiiska tiri ninkaasi wiis dilay haddana markii labaad iyadoo uu dib u ay tiri waa la dilay aniguna aan aaminsanahay inuu yahay arinkaasi arin Faransiis dhexdiisa u dhaxeeya laakiin yaa madmadowga keenay dhowr iyo 20 sanadoodba laakiin dhinaca Djibouti waxay tirsanaysaa dawladda Djibouti ay mar walba ku celisaa inay casuumad iyo ragga maalgashiga Faransiiska wadankan inay ku sameystaan sarayo hoosba way ula hadashay laakiin waxaad moodaa inayna ragga maalqabeennada Faransiiska dhagjala qusin waxaaba ku ajburayna Djibouti inay wadana kale xiriir la sameeysato ay Shiinaha iyo kamid yihiin waa gartay Shiinaha soo hadal qaaday ma isleedahay marka Faransiisku hawlahaas hadda uu ka wado Shiinuhu Djibouti awood uu leeyahay inuu asaguna wax ka geysto xiriirka Shiinuhu imika de Faransiisku dhaqaale ahaan Shiinaha uma dhigmi karo laakiin Faransiisku wuxuu gadwadeen ka yahay reer galbeedka oo dhanba waan gartay xiliga Shiinuhu imika waan gartay Shiinuhuna haye
ay shiinuhuna dee dhaqaalaha Djibouti imika xilliga aad u eegtid produit intérieur brut waxa la yiraahdaa amba PIB-ga boqolkii bank mondialku wuxuu ku sheegaa wax boqolkiiba boqol ka badan hadii tolide inuu in gaaraysa inay Djibouti deyn lagu leeyahay waan gartaa caarif ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waqtigan uu naga dhamaanaya in ma suurtagal ma tahay maadaama Ismaaciil Cumar Geele muddo badan oo 20 sano iyo uu xukunka hayay dadkan wadamada reer galbeedkana dimuqraadiyadda iyo waxa iyo inta badan ay eegaan in xiriirka u dhaxeeya isaga iyo Faransiiska wadamada uu ka mid yahay in ay taa saameyn ku yeelato muddada dheer oo xilka haya maanta xilligii madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti shirka jaraa'id isku garab qaranayeen nin Faransiis ayaa su'aal weydiiyay oo wuxuu ku soo hal qabsaday madaxweynaha Algeria ee imika ka tanaasulay inuu marshanaad ku noqdo madaxweynaha Faransiiskina arinka aad baan u soo dhaweynaynaa buu yiri laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti kamuu jawaabin su'aasha xilliga calaamatu su'aal ba xagga saaran baan u maleynayaa والله يعلم aad aad baad u mahadsantahay caarif cabdi kheyre oo ka faalooda arrimaha Djibouti oo khadka si toos ah ugu jiray magaalada Bristol mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxaa noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka caawa aad ku daawan doontaan koronto gelinta Afrika waxaanu eegi doonaa qaababka kala duwan ee korontada ama dabka loo geliyo guud ahaan qaaradda Afrika wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale aan idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn waa go'aan kale iyo codeyn baarlamaan oo muhiim ah laakiin xildhibaanada Britain markan ma taageeri doonaan heshiiska ra'iisul wasaarahooda ee Brexit ee looga baxayo midowga Yurub madaxweynaha Faransiiska oo booqday Djibouti maanta ayaa ku amaanay doorka dowladda Djibouti ee nabadeynta Soomaaliya dalalka Singapore Australia iyo Britain iyo shirkado kale ayaa mamnuucay nooca diyaaradaha shirkadda la Point 737 Max kadib markii diyaaraddii Ethiopia Airlines ay dhacday dabayaqadii toddobaadkan iyadoo oo ay dhammaan dadkii saarnaa ay 157 ahaa ay ku dhinteen dalal badan oo kale ayaa iyaguna hakiyay diyaaradda noocan ah Mareykanku ma aanu u joojin isagu laakiin waxa uu wali ku adkaysanayaa in xaaladda uu qiimeynayo sanduuqa kaydiya xogta diyaaradda dhacday ayaa iminka baaritaan lagu wadaa faahfaahin ku saabsan halka ay wax marayaan iyo wararkii ugu dambeeyay waxa inoo haya Cabdixaafid Cawd Ismaaciil goobta ay diyaaradda ku dhacday way ballaaran tahay qunyar si degan oo ixtiraam leh ayay baarayaashu hawshooda u wataan iyagoo rajaynaya in matoorka burburay taayirada googo'ay iyo alaabadii rakaabka ku dhintay shilka bal ay inuun ka ogaadaan sida ay wax u dhaceen diyaaraddan Itoobiya ee ay ku dhinteen 157 ruux su'aal weyn ayaa ka taagan diyaaraddan oo 2 sannadood u shaqaynaysay laba nooceeda ah ayaa dhacay ta kale waxa ay ahayd Lion Air October-tii aynu soo dhaafnay ayay badda ku dhacday ma nasiibkooda ayaa xumaa mise cillad farsamo ayaa jirta Boeing waxa ay soo saartay software cusub hay'adda badbaadada ee diyaaradaha ee Mareykankuna waxa ay sheegtay in diyaaraddani ammaan tahay laakiin caalamka meelo badan oo ka mid ah sida Shiinaha, Singapore, Mexico iyo Argentina waa ay joojiyeen diyaaradaha noocan ah ee Max 8 inay isticmaalaan iminka dhowr diyaaradood oo noocan ayaa ka shaqeeya Britain shirkadda diyaaradaha Norway 18 duulimaad oo badiba ka shaqeeya madaarka London Gatwick, Edinburgh iyo Scandinavian-ka ayaa ka howlgala shirkadda dalxiiska ee Tuyo 15 duulimaad ayay ka samaysaa Manchester, Spain, Greece iyo waqooyiga Afrika shirkadda Ryan Air 135 diyaaradood oo noocan ah ayaa dalab ugu maqan iyada oo ta ugu horeysana la filayo inay soo gaadho bisha dambe Itoobiya waxaa la helay sanduuqa xogta kaydiya mudnaanta koowaad waa in la baaro maadaama oo ay shirkadaha diyaaradaha iyo rakaabkooduba si warwar ku jiro u sugayaan in diyaaradda Boeing 737 Max 8 ay ciladi ku jirto iyo in nasiib darro kali ahi ay ku dhacday dalal badan oo kale ayaa iyaguna hakiyay diyaaradda noocana Mareykanku ma uusan sheegin wax aan ahayn in diyaaraddu ay tahay diyaarad wanaagsan oo lagu duuli karo haddaba Cabdixaafid oo wararka la socday diyaaradda ayaa hadda si toos ah ugu jira khadka warqabadka ee BBC-da Cabdixaafid diyaaraddan Boeing muddo dheer bay ka howlgalaysay Ethiopia oo shirkaddan Ethiopia Airlines ay isticmaalaysay
bal faahfaahin naga sii farxan aad ayaad u mahadsantahay sidaad sheegtay Ethiopian Airline ee Boeing waxa ay isticmaalkeeda bilowday sanadkii 1945 xilligaasi oo boqorkii dalkaasi Haile Selassie oo heshiis la galay shirkadda diyaaradda samaysa dhammaan diyaaradaha Boeing ee waaweyn way isticmaashay marka laga reebo diyaaradda 747 xataa madaarka Bole International Airport waxa loo dhisay in ay diyaaradahaasi ay isticmaalaan shirkaddan Ethiopian Airline Boeing markii ugu waxay shirkaddii ugu horeysay isticmaasha Boeing 767 iyo waliba Dreamliner tala yiraahdo 787 marka xiriirku aad ayuu u dheer yahay waan gartay shirkaddan marka go'aankan hadda ay wadamo fara badan qaateen oo saacadihii ugu dambeeyay UK xitaa ay tiri hawadeena ma soo gali karaan diyaaradahaasi oo ay mamnuuceen saameyn intee leeg bay shirkaddan Boeing ku yeelanaysaa kow subcaddii shirkadda Boeing saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa saamiga suuqa ee dhaqaalaha taa lafteeda shaki ayaa ku jira sheerarkii iyo saamiyadii ay dadku ku lahaayeen taana waxba imanaya ingiriiska jarmalka faransiiska singapore dhammaantood hawada ayay ka mamnuuceen inay soo gasho diyaaraddaasi ee 737 max 8 shiinaha australia malaysia indonesia ayaa iyaguna waxay ka mid yihiin diyaaradaha joojiyey ee isticmaalka 5,100 diyaaradood ayaa laga dalbaday shirkadaasi oo imika maqan Ryan Airline waxa ay dalbatay 135 diyaaradood waana shirkadda kaliya ee ilaa imika iyagu aan joojin inay diyaaradahaas u yimaadaan diyaaradoodii ugu horeysayna waxa la filayaa farxan inay bishan ay soo gaadho sida aynu warbixinta ku sheegnay Mareykanku ilaa imika waxa uu ku adkeysanayo inuu qiimeyn sameeyo diyaaraduna ay ammaan tahay laakiin waxa xusid mudan farxan in ay wax badani ay ku xidhnaan doonaan baaritaanka ka soo baxa qiimeynta lagu sameeyo sanduuqan kaydka waan gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa ku weydiiyo ka dhaxgale waqtina ma hayno Mareykan ba iska leh shirkaddan Boeing ayaguna wax sidaa hadda kama dhihin marka ammaan bay eegayaan mise arrin kale oo siyaasadda meesha ku jirta dabcan ammaanku waa soo galaya siyaasaddu waa soo galaya dhaqaaluhu wuu soo galaya Boeing diyaaradaha oo kaliya ma samayso waxyaabo badan ayay samaysaa markaas waa inay shirkadooda difaacaan maadaama shirkadda uu dalku leeyahay ta kale maaha oo kaliya shirkaddan Boeing inay diyaaradaha samayso waxyaabo badan oo kale ayay samaysaa marka kulli calaamad su'aal ayaa ku imanaya saxaafaduna aad ayay farxaan oo wada haysaa laba diyaaradood inay muddo aad isu dhow ay dhacaan shaki weyn bay keenaysaa aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo naga warramaya arrinta diyaaradda Boeing bal iminkana aynu dib ugu noqono wararkii maanta ugu waaweynaa ee Brexit wali waxa socda dooda Brexit ee UK ay uga baxayso in midowga Europe caawa la codeynaya waxa studio hayla joogo isha ku haya Cabdiraxmaan Bidhaan Cabdiraxmaan maxaa loo codeynaya caawa farxa wad maantanta waxa loo codeynaya caawa sida ra'iisul wasaaruhu sheegtay aanu sheegnay in loo codeeyo bal haddana heshiiska ee markii hore gaadhay bishii January ay baarlamaanku aadka u diideen ayay soo celisay oo ay leedahay qodobada qaar ayaan soo bedelay si aad ogtaan xal Strasbourg ba ka soo noqotay Faransiiska oo waxay la soo hadashay madaxdii midowga Yurub marka waxay leedahay qodobkan aad la isugu hayay arrinka ah xadka Ireland ayaan xal u soo helay marka arrimuhu saas u socdaan taas ugu horeysa waxa loo codeynayo laba qodob kale way jiraan oo ah in ama Brexit kadib loo dhigo oo hadhow iman doonta amaba in lagaga baxo Europe bila heshiis oo la yiraahdo sida caalamka kale aynu macaamilo waan gartay hadda aan hadlayno doodba baarlamaankii ka socota Westminster oo ilaa caawa saacado kadib baa go'aanka la filaya marka maxaa intaas oo dhan marka laga doodaya baad isleedahay horta waxa cajiibka farxaan oo ka socda golay baarlamaanka waxay inay kuraasi badan maran tahay oo dadka qaar waxay leeyihiin doodii hadal ma rabno maskaxdeeda horaan u sameeynayba go'aanka waan gaarnay marka waxay leeyihiin wixii hadlaya ha hadlaan marka waxaad moodaa ay u badanayaan dadka faalla qoreenkana in ra'iisul wasaaruhu aan ku guuleysan doonin codka ay rabto haddii marka caawa sidii bishii January ba dhacday laga guuleysto Theresa May xagee ku dambeynaysaa waxa ku dambeynaysaa in arrintan sii jiitanto waxaana u badan tahay bal leeyahay in lagu daro waqti ee Brexit-ka waxa kaloo dhici karta bay leeyahay dadka faalla qoreenka Ingiriiska in Theresa May hogaaminteeda laftigeeduna ay khalkhal gasho taasi oo sii dheerayn karaysa murankan iyo dhakafaarkan ka taagan Brexit laakiin arrintan muddo soo jiitamaysa hadda muddo 3 sano ay ku dhowdahay markii loo codeeyo loo qaaday aftida in UK ka baxdo ilaa haddana dadkii wali wax jawaab oo cad ma jirto in mar kale dib meeshaadi ugu noqo ay dhacdo suurtagal ma tahay iyaduna iyada laftigeedu waa suurtagal waayo waxa la leeyahay farxaan oo siyaasiyiinta wadankan ayaa dadka waxay uga dhigeen wax fudud in Europe laga baxayo waayo imka arrintan wad ogtahay Ireland oo kale lagama doodin markii hore waxa loo haystay wax iska uun ah inta la codeeyo subax dambana lagu kala tagay heshiis fiican oo la galayo ganacsi laakiin arrimuhu sidaa way ka balaadheen waana ka qoto dheer yihiin
aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan bidhaan oo nooga faalloonayay doodaasi baarlamaanka ka socota UK ee Brexit oo caawa go'aankeeda la gaarayo. Marmarkana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno kooxda Atletico Madrid ayaa caawa magaalada Turin waxa ay kula ciyaaraysaa kooxda Juventus quarter finalka tartanka Champions League. Atletico ayaa lugtii hore ka badisay oo 2 gool ciyaartii ay yeesheen ku badisay. Ciyaaryahanka Juventus ee Ronaldo oo ah ninkii ugu goolasha badnaa tartankan ayaa isagu markaasi ciyaartan ciyaari doona. Manchester City waxaa 3-2 ay iyaduna ay kooxda Schalke ay kaga haysataa la sheegaya in ay tartanka horyaalka ee Yurub ay caawa ciyaar kale ay wada leeyihiin waxay noqonaysaa ciyaartii labaad wareegii labaad ee 16 oo markaasi ay Manchester City ay ka yara dambayso 3-2 gool. Pep Guardiola ayaa waxa uu digniin ku bixiyay in kooxda Manchester City ay markaasi ciyaaryahanadooda ay isku dhigaan meeshaasi. 10 bilood kadib markii uu tagay Real Madrid uu ka tagay tababarahoodii Zinedine Zidane ayaa kooxdii uu dib ugu soo laabtay heshiis qandaraas oo cusub oo socon doona 3 sano iyo bar ayuu la galay. Tababaraha Francisco waxa uu jagada kala wareegi doonaa Solari oo jagada laga eriyay markii uu hayay 5 bilood oo kaliya. mid ka mid ah weeraryahanada kubadda cagta ee adduunka aadka looga qiimeeyo ayaa si gaar ah khibradiisa BBC-da ula wadaagay weeraryahanka kooxda Bayern Munich u ciyaara Robert Lewandowski. ciyaaryahanka Bayern Munich ee Robert Lewandowski ma yahay weeraryahanka ugu wanaagsan. Robert Lewandowski. Yes, exactly. Yeah, perfect. waxa uu dhaliyay 316 gool intii uu ciyaaraha ku jiray. saddex waxyaalood ayuu weeraryahanka wanaagsani leeyahay: cabir dhammaystiran, go'aan qaadasho, farsamo iyo mid afraad, xoog. 2015 Lewandowski ayaa naadigiisa ku caawiyay in ay ka badiyaan kooxda haysato horyaalka Bundesliga ee Wolfsburg isagoo 5 gool u dhaliyay 9 daqiiqo. aad ayaan uga caraysnaa inaanan ciyaarta bilaabin. ciyaarta iyo 5tii gool aan 5 daqiiqo ku dhaliyay noloshayda oo dhan waan xasuusan. aniga ka sokow taariikhda kubadda cagta ayaa xusi. anigu marnaba kuma riyoontan. uma aanan malaynayn inaan sidan samayn karo. ciyaarta kadib waxaan guriga u qaatay kubaddii. waxaan xasuustay qoyskayga iyo asxaabtaydii ciyaarta daawanaysay. maxaa yeelay taageeradoodu aad ayay muhiim iigu tahay. Lewandowski waxa uu ciyaaridda kubadda cagta ku bilaabay da'yar. 3 saacadood ayuu u safri jiray si uu tababar u qaato. laakiin kuma uu ahaa halyeegiisii kubadda cagta markii uu yaraa. aniga carruurnimadii Thierry Henry ayaa halyey ii ahaa. waan xasuustaa markii aan la kulmay Thierry Henry. waxaan isiri waa kan halyeygii carruurnimadaadii. laakiin haddana wuxuu doonayaa funaanadaada. waa cajiib. waxaan aaminsanahay in riyadu rumowdo. waxaa lagu xantaa inuu u wareegayo naadiyo ay Real Madrid ku jirto laakiin ma qorsheynaya inuu ka tago Bayern Munich. wax waliba halkan waxay marayaan heerka ugu sarreeya. naadiga, taageerayaasha iyo ciyaaryahanada oo cajiib ah. waa inaad taageerayaasha siiso waxa ay doonayaan iyo weliba wax walba oo kooxdu aniga iiga baahan. inta ayaanan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiiba waxaan idinkaga tagayaa habeen wanaagsan.